Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo wakiilada qaramada midoobay, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika. Kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin ku aadan xaaladda waddanka iyo sidii ay wada shaqayn u dhexmari lahayd xukuumadda uu soo dhisi doono, isla markaana hore loogu sii qaado horumaradii dawladdu gaartay, iyadoo kulanka ay qayb ka ahaayeen sihayaha Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Mudane Axmed Ciise Cawad. Safiirada ayaa muujiyay taageeradooda ku aadan Ra'iisul Wasaaraha cusub una rajeeyay inuu ku guuleysto howlaha muhiimka ah ee horyaalla xukuumaddiisa, waxayna ku ammaaneen arrimaha mudnaanta u leh Ra'iisul Wasaare Rooble sida amniga, doorashooyinka, horumarinta dhaqaalaha, cadaaladda iyo garsoorka. sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Mudane Axmed Ciise Cawad oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda kulanka maanta. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble maanta oo maalintii labaad oo si rasmi ah xafiiska Ra'iisul Wasaaraha u fariisto waxa uu qaabilay safiiro dalka Soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogayaha qaramada midoobay James Wan. dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska, Shiinaha, AU-da wakiilkooda, dalka Djibouti safiirkooda, safiir ku-xigeenada Turki iyo Qatar, iyo wakiilada European Unionka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay Ra'iisul Wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay. waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhaxeeya. waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin. waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta. Ra'iisul Wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed. wuxuuna ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto waxaa la yidhaahdaa xiriirka iskaashiga ah ay la leedahay dalalkaas iyo hay-adahaas. wuxuu tilmaamay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanayso iyo sida Soomaaliya uga go'an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hogaaminayo. marka wuxuu ahaa kulan fiican oo ku soo dhammaaday isafgarad iyo isu hambalyeyn. Nasr Basheer Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.